halkan oo ah meel aamusan oo ay dadka dalxiisayaasha ku noqotay waqtin aad u ballaaran maxaa yeelay waxa ay la kulmeen. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام صاحبي السؤال وهذا ميل بد عالم كجكتان السؤال وإسقاري عدكي مقالكي ولكن ندل دريد الله اسكو سو ناخذ لك سنوات السلام أيوة بنت فرحسنتي الحمد لله حرجينيا إن أتدق فرحسنتي الحمد لله أنا كسو فرحسنا وكان سو كله نحن ما ندري إن الله سبحانه وتعالى والله كسو قد سليم مقال كان الله ود ما سنتاي سكن نحن ما ندري إن هذا مقال كان داونا وقتكم بحنايا سو مركز سودا ومقالك ومقال diyaarsan muuqaal kulul soo markay shaaxay kafeega soo diyaarso si muuqaalka aad si wanaagsan ugu daawato wargeynaya in muuqaalka taagtiisa soo aragtay oo wax uu ku qanciyay waxaan rabaa inaan muuqaalka sidoo hore aan ugu ballan qaaday barnaamijyada soo gudbin doono uu kamid ahaa barnaamijka la yaabka dunida muuqaalkan ay noqon doono qaybtiisa koobaad ee barnaamijka la yaabka dunida runtii markii la yaabka dunida laga hadlayo aad u adag tahay markii research la sameynayo baxtin la sameynayo yacni in meelo badan laga soo eegto si wanaagsanna loo soo eego si loogu soo gudbiyo dadka si ay wax uga faa'iidaan waxaan jeclaysay inaan muuqaalkan kusoo gudbiyo shanta meel ee ugu halista badan ee lagu qoray buugga rikoorka taariikhda meelaha ugu halista badan runtii waan rajeynayaa inuu muuqaalkan ku qancin doono I hope sidoo anigii qanciyo kalena ku qancin doono muuqaalka like saar waxa iga dhaman inaad like saarto oo keliya like saar muuqaalka siina share garay si aan u bilowno fiidiyogeena musaatay yes asaarta marina okay inoo bilow muuqaalka comment ka bixi oona yani fikradada ku dhiibo hadii muuqaalkan uu qanciyo markii aad dhamaysto muuqaalka waxaanu bilaabaynaa mawduucani ahaa meelaha ugu halista badan ee galay buugga rikoorka taariikhda muuqaalka koobaad wadada Yungas oo loo yaqaano wadada geerida waxaa la qiyaasaa in ku dhawaad 300 oo darawal ay ku geeriyooto sanadkiiba maxaa yeelay waxay leedahay khatar aad u fara badan wadadan qab dhismeedkeeda iyo sidoo kale dalxiisayaasha u xiisanayaan runtii markii lagu leeyahay 300 oo darawal ayaa ku geeriyootay waxa ay la micno tahay 300 oo darawal inay wadeen in ka badan 300 oo dad inay wadeen maxaa yeelay darawal waxa u saaran rakaab aad u badan waxaan ku geeriyooday markii la isku dardaro oo celcelisaan waxa ay saadaaliyaan ku dhawaad kumanaan ay ku geeriyooto sanadkiiba taa oo gashay in lagu qoro buugga rikoorka taariikhda meelaha ugu halista badan meesha labaad ee noqotay meelaha ugu halista badan ee gashay buugga rikoorka taariikhda jasiiradda Maska jasiiradan ayaa dalxiisayaasha ku noqotay ama ka sidoo kale fajac maadaama ay ugu soo tageen dalxiisayaal noqotayna meel dabil loogu dhigo inay ku geeriyoon runtii waxaa jasiiradan ku nool xayawaanada ay u badan yihiin xamaaradada sida masaska iyo sidoo kale abeesooyinka kuwa oo dabargoc ku sameeyo bini aadamka usoo dalxiis tago jasiiradan taa oo sababtay in dalxiisayaashu ay ku geeriyoodaan halkaa waxayna ka mid noqotay in lagu qoro buugga taariikhda ee meelaha ugu halista badan jasiiradan waxay ku taalaa dalka Brazil waxayna dowladda dalka Brazil go'aano badan ka soo saartay in qof waliba uusan u dalxiis karin jasiiradan maxaa yeelay khatarteeda oo aad u ballaaran meesha saddexaad ay ka mid noqotay meelaha ugu halista badan ee rikoorka buugga taariikhda lagu qoro waa harada Neutron ayaa noqotay meelaha ugu halista badan ee rikoorka buugga taariikhda lagu qoro sababtoo ah dadka dalxiisayaasha oo aad u jeclaada muuqeeda taa oo sababtay inay ku geeriyoodaan malaayiin dalxiisayaal iyo sidoo kale malaayiin kalluumaysato harada Neutron waa haro muuqeeda kore uu yahay muuq casaan ama guduud ah dadkuna dalxiisayaashana markay meel sare ka arkaan ay u maleeyaan meel aad u wanaagsan laakiin muuqeeda sare ee casaanka ah ayaa ah bacteria taa oo qofkii gala ama u dhawaada midabkiisa bedelaysa sidoo kalena qab dhismeedkiisana bedelaysa taa oo sababtay inay kamid noqoto meelaha ugu halista badan ee dadka dalxiisayaasha ay ku geeriyoodaan meesha afaraad ee aan ku soo qaadan doono muuqaalkeena la yaabka dunida qaybtiisii koobaad waa meesha ugu xun ee dhulka waa dooxada dhimashada dooxadan waa dooxa lama degaan waxaan u dhaxaysaa xadka California iyo sidoo kale Nevada ayna ku noqotay dhulka xun oo kuleelkeedu aad u daran waxa qiyaasaad la sameeyay sanadka markuu ahaa 2018 uu heerkulkeedu gaaray 108.1 taa oo sababtay inay ku geeriyoodaan malaayiin qof oo halka ku noolaa iyo sidoo kale dalxiisayaal halkaas u imaaday waxayna gashay rikoorkii ugu dheeraa ee heerkulka tani markii la xisaabiyo 2018 meesha afaraad ee noqotay meelaha la diiwaan galiyay ee lagu qoro buugga taariikhda meelaha ugu halista badan ayaa ah xeebta Qalfoof xeebtana waxay ku fidsan tahay koonfur Angola ilaa iyo waqooyiga Namibia
ceebtan ayaa waxay caan ku tahay inay tahay meel aad u aamusan oo aysan wax shanqaraysan ka jirin dadka dalxiisayaashan ay ku noqotay ama kaaga iyo fajac maxaa yeelay waxa ay la kulmeen wax aysan filanaynin maadaama ay u soo qaateen inay jawi soo bedeshtaan iyo sidoo kale soo dalxiisaan waxayna la kulmaan xeebta oo daadsan qolfoofta ay isugu jiraan xayawaanada badda ku nool sida iyo liberiga iyo sidoo kale maroodi badeedka iyo sidoo kale xayawaanada badda ku nool oo dhammaan taa oo ama kaag iyo fajac ku reebtay dadkii dalxiisayaasha ay u imaaday inay jawiga bedeshtaan iyaga oo meesha ku geeriyooda dhibaato ay kala kulmaan li'ajli waxayna gashay kaalmaha buugga rikoorka lagu qoro ee meelaha ugu halista badan marjaniya in muuqaalka aad ku qanacday maxaa yeelay muuqaalka waxaan ku bixiyo waqti waxaana yacni research u sameeyey si aad adigu wax uga faa'iido muuqaalkan oo aad like saarto waxay iga saacidinaysaa in muuqaalkan soo badiyo muuqaalada noocan oo kale even haddii aadan ka helin muuqaalka dislike saar waxaan rajaynayaa in muuqaalkaas uusan ku qancin waxaan samayn doonaa inaan bedelo muuqaalaad jeceshaan aan soo gudbiyo commentka bixi igu dhiirigeli si aan muuqaalada noocan ama caynkan oo kale aan u soo badiyo si aad wax uga faa'iido ogowna la yaabka dunida inuu ka mid yahay waxyaabaha dhisamaanka intii nool natiija inoo barana guulayso walaa